السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأويلكن يقولاد ومعت برامج آدم مهم يدين وضع marka hore sidaan barnaamijka guud galo waxaan ka codsanaa channelkeena subscribe tiraado asxaabta la wadaagto like-tana adigii la insha Allah ta'ala barnaamij aad u gaaban baan wada laakiin aad iyo aad u fiican barnaamijkaas oo ah sidee baan anaga ahaan Soomaali ahaan ee ganacsi wadanka ku yeelan karnaa waxa jira dad Soomaali oo wadanka ka ganacsada laakiin ma badna waxa jira dad badan oo fikrad ka dhex guuxaysa in ganacsi ku sameeyaa laakiin aanan aqoon weeygi loo mar lahaa sidee dawladda la soo diiwaangelin lahaa sidee ba waxyaalaha aan dawladda iga baahan tahay inuu gaan lahaa sidee baan ganacsi u bilaabi karaa waxyaalahaas oo dhan hadii ay ka dhex guuxayaan fadlan halkan aan bartan ku leeyahay social media ay la soo xiriir insha Allah ta'ala waxaan isku dayaa inaan boqolkiiba 80 ka caawiyo waqti waadi weerdartii waxaan rabaa inaan isoo koobo insha Allah ta'ala waxyaalaha waxa jira aad iyo aad muhiim ah oo wadanka marka aad joogto hadii aad lacag hayso iyo qarash iyo waqti intaba aad ka faa'iideyn karto aad ganacsi ku bilaabi karto ganacsigaas oo faa'iido badan ka dhalin karto wadankan waa wadan waa social yani waa dad kala duwan baa wadanka ku wada nool qof kasta fikradiisa iyo wixiisa iyo hal abuurkiisa xor buu yahay qof kula qabsanaya ma wax cooperate la yiraahdo wadankan uu ku jira fikradaada dad qofka la yimaado maxkamadda la kori karto haddaba as Soomaali ahaan maxay banaan sida wada ogsoonahay aniga Soomaali ahaan ma jirto dad qof khibrad ama wax la yiraahdo luqadaha qalaad waxa lagu yiraahdaa wax qofku ma wax practice wadankiinu ku soo bartay inaga dhan theory socdaan jaamacadda soo dhameeyay anigu wada jaamacadda soo dhameeyay maxaad ka faa'iido waxba maanta ma taqaanid sida laba wax la isugu geeyo wadankii marka joogto hadda salaado kaba ama wax tolo ama gurinis ama walwacaya hay maanta ku fikrada marin hadda waxay noo banaan dad xirfada lahayn oo ganacsi noocaas furin karin ama shirkada ay furin karin hadaba shirkada ay furin karin waxa noo banaan inaynu ishaag maxaa ganacsiga ay sameysano ganacsiyadaas waxa kamid ah koow aan kugula talinayo waxa weeye inaad qofka dad badan Soomaaliyeed dad liisan la way jiraan badan inaad liisan ka gaariyar oo waxa jira sida baska kala aad yani waxa jira hadii aad Soomaalihan aad ahayn cook waxa jira dad badan oo Soomaaliya oo yaqaan sida loo kariyo inaad qof dadka la mid ah kamid ah inaad heshiiso dabeetana aad tiraado cuntada ay kari wax yarna oo galo marka sameeysa gaariyaaga sida wada aragtan dadka qurbaha koodana waxa arkaysaa cuntooyin lagu iibinayo wadooyinka lagu iibinayo badanaa waxa jira magaalooyinka qaar magaalooyinka Jarmalka oo dhan ama magaalooyinka Yurub oo dhan waxa jira maalmo cayiman oo qofka intuu gaarigiisa ama alaabta soo qaato uu meel hebel ku iibin karo ama dukaan weyn baa la isugu imanaya ama laabiga la isugu imanaya maalmahaas ayaa jira maalmahaas waxa jira inaad soo weydiisato xarunta dawladda oo saamaraad hoos ka saleeyaa oo tagtid dabeetana aad ballan ka soo qabsato gibuuga yar baa la bixiyaa ama lacag yar baa la bixiyaa inta aad joogto meeshaas okay marka adiga waxa ku banaan halkaana waxa ka ilaawa isla meeshaasna waxa leedahay light bell ama electric soo yaqaano hadii aad gaariga ku sii doonto yani talaagadu baahan ama cunto aad rabto markasta inaad shiisho ama kariso leer ba meel ka soo talaalaysa leer kaan lacag baa la iska bixiyaa adigu waxaan wax aad u badan ma aha cuntada soo qaadanaysa freshka halkaas aad ku iibinaysaa salaha maanta oo kale waa yama waa salaasa salaha suuq oo kale martier baa jiro isku imaado adigu halkaas cuntada ku soo bandhigaysaa lacag aad iyo aad badan baa laga helaa dadka wadanka ku nool waxay xiiseeyaan waa cuntooyinka ajaanibta badan boqolkiiba 90 maxay ka dhigaysaa qofka diyaarisa ama familka qofka mid cunto fiican ku soo karo Soomaaligeeni bariiskeeni hilibkeeni sambuuskeeni badan xagga laakiin cuntooyinka culus la markii la meekano cunto fudud baad keensanaysaa kadibna waxa laga yaabaa lacag badan ku soo gasho ko fikradaas waa fikrad aad u muhiim ah kuma kaanaysid gobolka digintay ama Christka digintay maalin buu xatigaysaa meel maxaa yeelay waxa jira meel laga eego waxa uu tagaysaa xarun dawladda oo saamaraad hooska oo kula socodsiinaysa maalinba meesha la tagayo saamaanto kale suuq hebel baa la tagay lagu leeyahay waa tagtaa birta oo kale magaalo hebel baa la tagay wiigaasuna waa soconaysaa sida aad badan kuma baxayo kira kaaga ma baxayso lacagna waad ka dhalaysaa waa fikradda ugu muhiimsan ee hadda wadankan hadii aad joogtaad ka dhalin kartaa lacag fikradda labaad waxa weeyaan inaad horta waxaan oo dhan waa qofka inuu markuu ugu horeysa uu liisanka haysto waxa la yiraahdaa self-business yani qofka inuu isagu business uu isagu leeyahay uu ka ganacsanayo
marka in lagula xisaabtamo ay dhacayso finance amtiga meel la yiraahdo qaybta cashuuraha iska soo diiwaan geliso deetana la eego waxa ku soo gala iyo waxa ka baxa haddii ay waxa qasaaraha hadduu bato lacag hal eer laga qaadi adiga ayaa lacag u siinaya marka waxa jira abtiraagi ama waxyaalo badan oo la buuxiyo oo lacag lagu codsado haddii aad qasaaro gasho mar labaad baa ku sheegay haddii aad u baahan tahay musaacado noocaas la soo xiriir fadlan anigu khibrad uma leeyahay businessadii nooca laakiin waxyaalaha abtiraagi insha Allah warqadaha iyo waxyaalaha dawladda badana khibrad baan leeyahay waan ka saacidon doonaa insha Allah intaan awoodo fikradda kale ku banaa waxa weeyaan inaad waxa jirta cunto Soomaali inagu ay dhaqaano okay cunto Soomaali badana dadku waxa jira dad badan oo dukaan Soomaali aan u dhaweyn magaalada degan yihiin salaha magaalooyinka waa dukaamada Soomaali ku yaqaan sida wadanka Germany okay aniga maxay banaa gaarigayga yar baska oo kale yar ayaa waxaan ka buuxsanayaa ay nooc cunto Soomaali aan liibiyo okay salaam guriga keelaha kale waxaan ku dhiganayaa cunto kasto oo culaysan ka san dhiganayaa cunto kasto fudud oo Soomaaliga gaariga gashanaya marka waxa samaysan wax kasta mar la yiraahdo ama kundi dadka Soomaaliyeed ma information kaas la wadaagaysaa ama waxa samaysanaysaa meelaha badan Soomaalidu ku badan yihiin baad information ka u bandhigaysaa telephone numberkaaga ama WhatsApp ama meel laga soo xiriiro kadibna waxaad oranaysaa barnaamijkaas amata insha Allah dadka lagu soo xiro markaas salaam dadka Soomaaliyeed badan waxa jira dad badan hayman degan waxa la yiraahdo guri dadku dawladdu ka bixiso laakiin ajaanib badan wada degiyihiin marka halkaas oo kale tigisa ama hebel oo kale Soomaaliya joogta dadka soo iibinaysa wad ka soo waxaad kala tagaysaa salaam xaafado kale Soomaalidu ku badan tigisa qofkii Soomaaliga isagu wax faa'iido ugu jirto waxa weeye isagu bas ma raacayo oo dukaan hebel ma tagay talaan ma raacayo magaalo hebel oo dukaan kama soo iibsanay Soomaali lixood waa soo fududaysay qofkii waxa baaqanaya transportka baa baaqanaya alaabtan gurigiisa lagu keenaya fikrad kale oo waxa jirta hadii lacag saaran qofkii dad badan qayb aad waxa page ina sameeysato nawaad ugu fiicantay Facebook oo aad alaabtaada ku soo bandhigto si qofkii arka aan u tigi kara xataa aad boosto u dhigto labada fikrad aad bay muhiim yihiin fadlan ka faa'iideysta waxaan kugula talinayaa intaad joogto wadankan inaad lacag dawladda aad ka qaadan qof kasta oo sidoo xamaalo kara u xamaasho haddii aadan aqoon fiican ku xamaalata Allahayna xamaalka caadiga gal qof kasta oo shaqaystaan kula talinayaa maxaa yeelay mustaqbalka ama dadka wadanka sharciga wax laga qaataa waa inuu qofku shaqaysto oo cashuur baxsho intaas aan kugula talinayaa mar kale waxaan saddexaad waxaan ku leeyahay fadlan channelkayga soo booqo waxyaalo aad muhiim ah oo ka anfacaya ku jira. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.